finally waxaan daawaday filimkii maalmahan social media qabsaday ee soo taxay bisha June 6-deeda Stroke. Waa filim ka hadlaya maamo single mother ah, gabar yar xanuunsan haysata I didn't come here to rob the bank. I just came to get the money for my baby. Janaya. What? oo qabta xanuunka qalabka. Intaas waxaa u sii dheer inay la tacaalayso nolosha caadiga ah, maamadana ay tahay qof aan haysan wixii gabadhaas ay ku daaweyn lahayd, kana shaqaysa 2 shaqo si ay u kaafi lahayd nolosha gabadha. Waxaa ku sii dheer gabadha inay dhigato iskuul iyo kirada guriga u sii dheer. Marka waa qiso aad u xanuun badan. Kolley anigu waan daawaday waana ka helay filimka. Filimka waxaa qoray director-kan Tyler Perry, waxaana director gareeyay isla asiga, waxaana produce gareeyay isla asiga. Atrishada koowaad waxaa waaye Raggy P. Hansen. Atrishada labaadna waxaa waaye Sherry Shever, atrishada caanka ah, iyo Tiana Taylor. Saddexdaas waa leading role-ka filimka, waana filim aad u xiiso badan. Casharada aan ka barto waxay tahay filimkan gabadha hadday single mother noqoto ama ilmo lagu furo, haddana ilmaha laga sii qaato, waxay geli kartaa xaalad caafimaad oo halis ah, weliba xaalad dhimra. Markii aan arko gabar dhahaysa ciyaalkii iga maqan, xanuunka ay leedahay, qofkii filimkaas daawaday ayaa fahmi kara. Filimkan wuxuu cashar u yahay wiilnimo badan oo Soomaaliyeed oo ku fura gabdhaha daawo filimkaas waa ka heli doontaa. Aniga filimkaas waxaan siiyey 7/8, laakiin filimkaas waa filim aad u fiican. Soo daawo waa ka heli doontaa. Haddii aad ka heshidna nagu soo noqo wixii cashar aad ka faa'iiday intana bulooga.